Saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa u geeriyooday cudurka saf-mareenka ah ee COVID-19 oo muddooyinkii dambe si weyn ugu faafay dunida sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Mareykanka. Taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa arrintan ku shaaciyay warbixin uu dhawaan soo saaray oo uu kaga hadlay howlgallada la dagaalanka iyo hoos u dhigidda awoodda argagixiso ee qaaradda Afrika. Warbixintan oo uu gudbiyay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaal ka tirsan kooxdaasi ay u geeriyoodeen cudurkaasi inkastoo si cad loo sheegin tirada saraakiisha uu cudurkaasi ka dilay Al-Shabaab iyo magacyadooda intaba. Devin Andrews, taliyaha howlgallada gaarka ee AFRICOM oo warbixintaas gudbiyay, ayaa sidoo kale xusay in cudurkaas uu soo ritay saraakiil kale oo ka tirsan kooxdaasi, wuxuuna taasi ku macneeyay inay meesha ka saareyso sheegashada in cudurkaas uu gaalada gaar ku yahay sida uu hadalka u dhigay. Cudurka ma uusan soo ridin saraakiisha Al-Shabaab oo kaliya, balse qaarkood ayaa u geeriyooday cudurkaasi, ayuu yiri sarkaalkan. Al-Shabaab ayaa hore guddi u saartay cudurkaas oo dunida ku faafay. Mana jiro wax war ah oo arrintaas ku saabsan oo ka soo baxday kooxda Al-Shabaab, mana jiro cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada taliska AMISOM. Cudurka COVID-19 ayaa dunida meelo badan oo ka mid ah saameeyay iyadoo dad badan oo caalam ka mid ahna ay u geeriyoodeen cudurkaasi.